رويال تي في وما تصورت الشيء مرة سيجارة وكليش. أهلا وسهلا. إن سؤال شو جوه رئيس عن ربنا كودي حيتها إن سدوا أركتام كهرة إن دولة دا إن ضد الكش قيمة إن درك الصومالية وصدق سنة تقريبا كبرة إن حيابها يكون بيست. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على بعد وحوارك دولة دا إن لبعض سنة دور لقوا جوليس وين يكون جوليستي فضل إله أسكال سبحانه وتعالى ثم تذكير الشقة الصومالية نبغى هالنقدانة مثلا ما إن لا أبو ربيس صومالي أي دولة نما رسمية أيو نبض أيو هرمان أيكو قالي كرتينو لويا لمانت إن مدحين حاجرت إن دوان عشر كيما السعودية عشان يسوق اللي بانا الرسول الصومالي يلا إن مثلها عبشة سامين وأيكو يلا كرتان إن اللي بانا كيلا السوق odayaasha marka ugu horeysa ayaga laga rabaa inay qabiiladooda iyo familiadooda dadka ay ka soo xulaan ay ka fikiraan anaga waxa mar walba ku dhiirigelinayna war dad fiican soo xula barashar mar walba waa iska imaanaa dad wax raba nin walba waa qayli doonaa laakiin qofka waxa sharaf u ah inuu dad fiican oo ku faani karo oo keeno baarlamaanka raha wasiirada go'aana ay soo saareen in shalay mar walba weydiina in waxa jirtay ra'iisul wasaarihi musharax xalay ra'iisul wasaarihi wareegto soo saaray hadalkaadii iyo ugu jawaab masalada hay jiritaanka dawladda ku meelgaarka inta ka dhiman khilaaf ay ku dhimaysan waa ka xumahay koleyto xukuumadda waxa laga rabo hawla u taala laga rabo inay ku mashquulaan laakiin xafiiska iyaga soo magacaabay inay ku mashquulaan aniga waxaan aaminsanahay inuu yahay wax nasiib darro ah laakiin haddana processka gabagabo jooga saameynta khilaafka oo yeelo kara aad u koobanta maxaa yeelay رئيس وزراء مشرح قدومية برلمانك مشرح أنا مشرح أنا الأركب صندوق السوق وحوك هلا وكقالدنا لكن وحافي عناد أنا يقول في عناد يضع لسكوف في عيني هاي عن وحبة جرين إن ما شاء الله تقول. دور الشذ حلي يقول قلت له قال لا أعتنك أقصد ما دعي كرتا يسلم. وأجعل لها إن العضلة لكن حوجة إن الدب وقد عيسى من ده. إن مدن مدحين إن وحاجرت إن مشرحين إلا يطلبات كل واحد أي تاجن إن حركة إن مدحين من الصومالي ويكون رئيس الوزراء هذه يقدمون في البرلمان إن مثل هذا هي كرسي كان أتوقف له إن كلمة جارة يولي ما دام مشرحين بدل أي تاجن waxaa u maleynaa haddaan iska kaftamo fadhiga aan ku fadhiyaa iyo marxaladda la soo gaaraa mid macaan ka dhiga marka dad badan ay soo istaagaan laftiga waxay ay tahay waa fiican tahay rajada aad ka qabto balkoor in 40 sano oo soo socota ku soo laabto boqolkiiba boqol waxaan ka qabaa inaan ku guuleysan doono kursiga insha Allah mudan madaxweyne waxaa jirta ammaanka magaalada Muqdisho inkastoo dawladdu markii ay soo dhisay wax badan ay iska bedeleen haddana ma isleedahay ilaa iyo hadda dawladdu kumaysan guuleysan ammaanka Muqdisho inay sugto gobolada dalka iska jira magaalada Muqdisho dawladdu inay sugto waa ku guuleysatay waa garan kartaa meesha hadda aan fadhino bila ka hor lama fadhi karin habeenay maalna magaalada la socda lama soo karin dal kasto adduunka ka jirana dhacdooyin waa ka dhacay dal 20 sano burbursanay oo alqaacida joogto inuu sidaan noqdo waqti kooban waxaan aaminsanahay inay wax weyn tahay haddana meesha kama baxsana in loo baahan yahay kor loo qaado habeen iyo maalinna waxa laga hadlaa si kor u qaadna amniga dad badan madaxweyne waxa isweydiiyaan mushaaraadkii ciidamada shaqaalihii u shaqeynaya hay'adaha kala duwan ee dawladda ku meel gaarka muddo 3 bilood ah wax mushaar ma aysan qaadan miisaaniyadii dawladda waa ay degsan dadku waxay ku xisaabinayaan xilliga kala guurka in saameyn uu ku yeesho doorashadii iyo saameyn ay ku waxa ugu horeeya waa xilli badxiran oo soo aaday dawladdana budgetka ku talagalku wuxuu ahaa in kaalmooyin ay hesho kaalmooyinkana muddo dheer ay maqan yihiin oo aan helin marka culeysyo noocaas ah jiray laakiin waxaan rajaynaynaa xilliga soo socda in wax loo heli doono insha Allah سؤال هذا كويدي مدحوينه ضد بدهم حق سويدين يعني قف مركو شقق وقبته waxa uu soo mariyaa go'aano aad u adag inta xilka aad heysay go'aanka kugu adkaa oo ku soo maray maxay xilliyada aan soo maray aniga kulli wadaba yani go'aano aad adaga igu soo aadahay
marka waxaan u baahanahay inaan inta aniga diyaar garoobo kulligeen wareysha suunkii waxa aan kaga warramo wada mid u qaadan hadii kale waa ka xiisa dhacaysiin okay madaxweyne waxaan kala rabaa inaan ku weydiiyo gobolada dalka qaarkood gacanta dawladda ku meel gaarka waa ay soo galeen qaarkood waxay qorsheynayaan inay soo galaan ma jira qorshe loo diyaariyay inkastoo cabasho ay imaanayso hadana qorshe gobolada dawladda ku meel gaarka ay ku talagashay in ammaankii ay ku sugto nacam qorshe balaarana loogu talagalay waana aragtaa umaleena hadda labada degmo ugu horeysa waxa laga sameeyay maalin walba sida horumarka amniga oo si bedelayo ciidamada aan haysana waa kooban yihiin ina kordhiso ciidamada oo meesha la rabo agaarsitan waxay u baahan tahay dhaqaale iyo dadkuna waxay u baahan in la tababaro mushaarkoodii iyo garamkoodii la diyaariyo laakiin haddana waxaan ku talagalnaa waxa aan haysanaa inaan isticmaalno oo gaarsiino anagoo kaashanayna shacabka deegaanada kala duwan degan oo la abaabulayo beesha caalamka aragtida ay ka qabto Soomaaliya waqtigan maxay tahay qiimeynteeda aniga inay rajo fiican ka qabaan inay arkaan markii ugu horeysay 20 dhowr sano inay Soomaaliya soo gaarto meel fiican wax badan oo aan lagu guuleysan hadda aan lagu guuleystay waxa kamid ah magaalada Muqdisho 20 dhowr sano la soo dhaafay inay dawlad gacanteeda soo gasho ayadoo sidaana ma dhicin horumarka magaalada laga arkayo dib u dhiska iyo dadka ku soo laabanaya laftigiisu waa calaamad fiican Soomaalida laftigeeda dareenkeeda Soomaalinimo iyo dawladnimo oo kor u soo kacayo qof walba oo isxilqaamayo waxay bixinaysaa rajo weyn waxyaabahaas oo dhan waxay dhiirigelinayaan international community su'aasha ugu dambeeyay madaxweyne inaan rabo aan ku weydiiyo dadka Soomaalida gudaha iyo dibadda ku sugan kana walaacsan qaabka doorashada ay u dhici lahayd dhinaca ammaanka maxaad u sheegi kartaa waxaan leeyahay Soomaaliya maanta bisayl ilaa xad ay soo gaartay road map kan inta la wado waa hal sano waxyaabo badan oo markii la saxiixay Kampala Accord aan lagu xisaabtamay in dhici doonana dhacay oo lagu guuleystay haddana waxaan leenahay waxa lagu guuleysan doonaa in baarlamaanka la soo xulo madaxda la doorto dawladda la soo dhiso caadina u shaqeyso marka qof walba wixii dadaal oo dhinaciisa inuu ku aada fiican shabaab Muqdisho waxay ka geystaan dilal sidoo kalena Muqdisho waxaad hore u sheegtay xarakada shabaab aad ka safaysay misalada wali dagaalka shabaab Muqdisho oo ku harsan waxaan rabaa inaan ku sheego jabhadaha habka u diraraan haddii ciidamadooda la jabiyo qorshaha labaad wuxuu yahay inay isku dayaan inay assassination ay sameeyaan assassination-kaas waa meesha ugu dambayso ay ku dhimanayaan marka aniga waxaan aaminsanahay meesha ay ku rafanayaan oo ay ku dhimanayaan taagan yihiin الله يبارك فرحة مير لبيرين قد ميريسن